وامد كبدبادي libaaxani dagaal aad u khatar badan kuwaas oo ay ka soo qaadeen qaar lagu magacaabo dilaayada ama killers kuwaas oo daris wadaag yihiin runtii dagaaladani waxay u muuqdeen qaar aad u khatar badan oo nafta ku way karo wuxuu dagaal aad u khatar ah waxa uu waajay saddex waxay ka qaadeen xadkiisii iyo xaynta libaaxyada ahayd sidoo kalena waxay ahayd muddo ka hor sidoo kale isagu waxa uu qabsaday Ufumbi Bride run ahaantii waa mid aad u khatar ah waxa uu ka badbaaday dagaal khatar ah kuwaas oo halkan uu ku waajahay saddex libaax ayaa midkan iska celiyay inkastoo dhaawacyo badan ay gaadheen haddana midkani waxa uu inoo noqday sumad ayaa u yiri Seaboy waa mid ka duwan libaaxyada kale xadka uu isagu leeyahay security ama amaankiisu waa mid aad iyo aad u feejigan mar walba inta badanna waa mid iska ilaaliya libaaxyada kale ee ka agdhow kuwaas oo noqon kara cadowgiisa isla markay ka qaadaan dhulka uu leeyahay sidoo kale dilaayadu waa qaar ku soo noqday meel ay isaga ka fogeyn waxa intaas dheer khatartoodu way sii badatay waana xoogaysteen oo waa 4 libaaxyadu si ay ugu badbaadaan meelaha sidan oo kale ay u joogaan libaaxyada khatarta badan ee isbahaysanaya iyaga laftoodu waa inay sameystaan wada shaqayn iyo teamwork marhaantaasina markaas ay ku badbaadi karaan halkan wada shaqayntu kuma eko oo kaliya kuwa dhadiga sidoo kale waxa aad u muhiim ah inay wada shaqeeyaan kuwa labka ah libaaxyada lagu magacaabo dilaayadu way xoog badan oo tiro badan yihiin balse Seaboy waxaanu indhaha noqonayaan oo kaliya isagoo marna la jooga raxanta marna kaligi gaafureegaya ilaalinta iyo gaafureegida iyo hadbadhan gooshida xadkiisu waa shaqada ugu weyn ee uu hayo midkan lagu magacaabo Seaboy haatan waxa uu fananayaa meel sare waxaanu ku wajahan yahay middan dhadiga waxa uu bilaabay inuu ciyaaro Seaboy waa mid kamid ah hubka ugu culus ee ku difaacda xadkiisa sidoo kale dhanka uu ku wajahan yahay waxa jooga kuwa cadaawa ahaayeen meel aad uga fog Seaboy waxa ka soo muuqday mid kale oo laba oo muuqda saddexdii walaalaha mid kamid ah balse nasiib wanaag ma aha kuwa waa mid kale oo Seaboy gacasaar leeyihiin waxa lagu magacaabaa Hildor sidoo kalena waa mid aad u khatar ah midkan laftiisu wada shaqaynta libaaxyada lafka ahi waa mid aad u cajiiba waxay sameynayaan orod yar oo dheerayn midkaas oo moodo dance ama ciyaar sidoo kalena sida dawladaha ay gacansaar leeyihiin mararka qaarkoodna iyagoo wada dhalan ayay wada shaqeeyaan waxay ka dhigaysaa Seaboy iyo saaxiibkii wada shaqayntooda xadkooda mid aan si dhayala lagu soo xadgudbin galabtaasi jawigu aad ayay u qurux badan yahay waxaanay sameynayaan gaafureeg Hildor qaar kamid ah cagabarorada halkan ku sugan ayaa u dhalay isaga laftiisu waana u dagaalamaya naftana waa u horaya markay noqoto xaaladda quudashada libaaxyadu inta badan midka labka ahi waxa uu la dhaqmaa sida maafiyada oo kale waa mid uga horeeya waxay cunayaan la marhaantaasina isagu ka hor cuna kadibna iyagu ay cunaan markuu ka dhargo maamulada raqda isaga ayaa ka masuula waxay dilaan kuwa dhadiga ah si toos ah ula wareegaya waa cunaya kadibna waxa uu tabamaraya kuwa dhadiga ah sidoo kale dhalahooda xabad yar oo garanuuga ayay dileen midka labka ah waxa uu ka tagaa ma gaadhay xataa cagabarorada oo kuma filaanayaan qaarkood xataa waxay waayeen meel ay madaxa mariyaan cagabarorada qaar kamida
waxay ku loolamayaan ku yaryari lafaha iyo dhiigga uu ka tegay midka labka ahi midkaas oo laastay raqdii. iyagu kuwa dhadiga ahi way ku adag tahay inay eegtaan ama ay daawadaan midka labka oo raqdii marinaya, kuwa yaryarina waxaan waxba ahayn ay weli ku hirdamayaan. waxay haatan si toos ah uga badqabaan raxantan libaaxyada ee weerarada kaga iman lahaa libaaxyada kale ee dibadda, waxaana haatan horjoogayaal waa 2 libaax oo aad u xoog badan. dhibka kale waxa uu yahay calooshooda aadka u weyn ayaa doonaysa in la quudiyo, rag kastana geesta qabsanaysa. libaaxyadu waa qaar aad u hurdo badan, habeen iyo maalinba iyagu way iska laaban yihiin oo way jiifaan. aragtidoodu waa mid aad u dheer, habeenkii markay cadceedu dhacdo ay noqoto mugdi. xayawaanaadku inta badan way ka duwayn indhaha aadamaha. libaaxuna waa uu ka sii aragti dheer yahay duurjoogta uu gaarsanayo oo ay ka mid tahay loogasiga iyo sidoo kale xayawaanada kale la halmaala. shandadiga 8 cagabaroor oo haatan koraya, 2 libaax oo laba oo waaweyn, raxantana waxay u baahan tahay raq weyn mar walba. ugaarsigu markasta waa mid u dhaxeeya khasaare iyo faa'iido, nolol iyo geeri. waa in aad looga taxadiro in laga dhaxkalo ama la qaso ugaarsiga kuwa dhadiga ah ee habeenkii. waxay ka mid yihiin xayawaanada mugdiga ku xidhan tahay guushoodu. waxay jecel yihiin iftiinka inay ka xararaan habeenkii, meelaha mugdigaana isku qariyaan xataa dayaxu waa qaar u dhibayo.